السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولا لي الله يذكرها النقض ربنا هيدا الحفظيو شالي صباح أيان صوبحني تدبير أيان صوب قادني حقيقة دول آديق كنا حيسد أو وح علينا إنك أولين جبن أيان صوب مرنا دول كاسو إسكجها يامين دتك رباديها يدقنا شالي أو نواسوس عني حلا أيان حسوق قرني دتك مش أصوها يامين أو رباديها مش كسوق حين أيان سوق قرني مش roob yar ka da'ay oo caleemahan dooga soo saaray laakiin dibku weyn waxa waa biyo la'aan oo ah in hadda meeshan laba meel oo biyo ay ku shubeen waaye booyado qofkii booyadu wuxuu ku shubanaya $200 deegaanada kalena waxa way ka sii fog yihiin kuwa $300 kuwa $400 halkii booyad ku shubanaya hadba waa shidaalka iyo masaafada la aadayo marka anaga alxamdulillah waxa isku dayno waxa kamid ah in dadkan aan wixii biyo aan ka caawin karnana aan ka caawino sidoo kalena markii magaalada laga soo baxaba network wala waaya oo network telephone ma laha saas daraadeed EVC iyo wax la mid ah shaqeeyaan lacagta $1 hadaa ka soo dhignay baan qoysaska siinayna si hadhow iyaga markay magaalada ama u tagaan haday u sarriftaan waxay rabaan ay ugu gataan and then lacag shan Soomaaliya maana soo qaadin Soomaaliya laftigiisa waxa soo qaadi weynay waxa waay qofkii tayadii baa luntay lacag tayadeedii baa luntay saas daraadeed qofkiiba waxa waaye $200 oo aan ugu soo ridnay baqshadahan aan ku soo habeynay baan siinayna marka Allah subhanahu wa ta'ala hadi karaan noqdo maalinka labaad safarkana marayna shalay waxa inta badan safar ku jirnay laakiin maanta waxaan isku daynaa in biidnillah booyadihi biyahana aan gaarsiino qarashaadna aan u qaybino aan farxad kadis aan u sameeyno qof yaani baadiye ka imaaday oo dhiban oo abaartan ay saameysay oo noloshiisa la dhiban in maanta markii buqshadan loo geeyo insha Allah biidnillah farxad ay u noqotaa rajeynayna idinkaale farxadaasna idinka aad ka faa'iideysataan Ilaahay murugadiina iyo dibka iyo xanuunka iyo meel kasta oo Allah subhanahu wa ta'ala yaani dib idinka haysto oo idinkaga dulqaado aad iyo aad u mahadsantihiin maalinkeeni labaad ayaa inoo bilaabmo rabta insha Allah biidnillah muuqaalkii kooban halkaan ku soo xirmay kii kalena insha Allah halkaan ka bilaabana assalamu alaykum